الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، درسي سيدة سورة الله كنت لك الآن أثر القرآن في سعادة النفس. مرات القرآن كل يحب ويقيت يلي من تنفته. السعادة أفقع عربات ومعنى له وذكرنا أيوه وكلمة أسل كذو كلمة خير هي فرحة هي خلاف النحس بيناتها. أما أنت بدل ضد كذا يكون تعريفية واحدة وضد الشقاوة أو ضد التعاسة. علماء الأخلاق كورته في فلسفة قلنا كورته هي علماء عادي جبوا وحي كتل المامانين غاية الإنسان وحو بلاد القرآن عيون أما هدف كيس الكوان waxay culimadu tilmaamaan qur-aanka marka la eegana nadaa'ir tiro badan oo erayga la macnaa ama ku dhowdhowba ku jira oo ah الرضا والطمأنينة والسكينة واللذة والفرح والسرور والروح. iyo eray kale ku macno dhowdhow intuba macno isku dhowdhow ayay tilmaamaan bay dhahdaan. bal haddaynu is idhaahno af soomaali ku tarjum erayadaas oo dhan laga wada tarjumi karee waa rayrayn ama liibaan ama baraadhe ama barwaaqo ama farxad iyo deganaansho iyo wixii la halmaana. waa waxa qofka bini aadamku uu noloshiisa raadiciya bay dhahdaan. culamaa alfalsafa khaasatan saddexdii nina bareen caamka ku ahaa suraad iyo aflaatoon iyo aristotle iyagu waxay ku tilmaamaan inay tahay alladda almacnawiya oo waxay u badan yihiin inay suraadoo kale wuxuu ku sheegayaa waa ariiqu lfadiila oo la maro sacaadada la sheegaya qolada kalena kama fogaan soo duuduub xataa falaasafadii muslimiintii kama fogaan. laakiin markaynu warkaba soo koobno maadaama aynu qur-aan u soconno ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu sacaadada weyn ka warramayo qura ayuu lafdiga qur-aanku isticmaalay. waama aladiina suciduu fafi ljannati khaalidiina fiiha ama faminhum shaqiyin wa saciid baa ilaahay tilmaamay. dadka waxaa ka mid a shaqi iyo saciid. kuwa sacdada ahi waxa weeyaan baa la yidhi waa kuwa jannada ku waaraya. idan waxay yidhahdaan culammadu acdamu sacaadaat ayuu qur-aanku eraygan u adeegsaday. meel kaloo ay qur-aanka kaga taallaa ma jirto fii suurati huud mooyaane. laakiin meelo badan oo kale erayada kalea ku jira oo mararka qaarkood in badan janno loo isticmaalo. maalan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wujuuhun yowmaydin naacima lisacyihaa raadiya ama walaqaahum nadratan wa suruura ama wayanqalibu ilaa ahlihi masruura farixiina bima aataahum allahu min fadli فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. erayadaas oo dhan oo isku macno dhadhow ama suruur ama farx ama quratu lacyin dhammaantood qur-aanku in badan wuxuu isticmaalayaa jannada iyo wixii la halmaala. haddaba waxa dhaha sacaadadu waa jannat alaxlaami alatii yanshuduha alinsaan. waa riyadiisa jannada ugu qurux badan ee bini aadamku raadaceeyo. sacaadada haddaynu si kale u tilmaamno waxaynu odhan karnaa waa xaalad uu qofku sulxi kula jira ama uu raalli uga yahay maca khaaliqi wa maca nafsi wa maca annaas. waa xaala uu qofka bini aadamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ula dhaqmayo ama naftiisa siduu ula dhaqmayo ama khalqiga siduu ula dhaqmayo uu raalli ka yahay. taa cagsigeedu waa dayq ama shaqaawa ama wixii la mid ah. ilaahay wuxuu leeyay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka. haddaba maadaama qur-aan iyo sacaada aynu isku xidhnay oo aynu nidhi waa raadka uu qur-aanku ku leeyay fii sacaadi nafs aw fii sacaadati nafs, waxay culimmadu yidhahdaan qur-aanku wuxuu u yimi basharka ama bini aadamka hanuunintiisa iyo sacaadadiisa adduuniya aakhiraba. qur-aankaba sababtuu yimi waa kaas bay leeyihin.
إلهينا والقرآن ككت المام يا إن اللسود جنين بشك ككديمه ضدها بإلهي كتلمام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن كوما نسود جنين بإلهي سبحانه وتعالى إن تكديدنته أمر بما دركتي البلي وحا لسود جي شفاء من كل ريب ومن كل سقم إنه قفك بنادم ككقع في ماضه نرش وحك استوعى تلقى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وحسود جيبا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كان بيت عافمات قلبي قواه عقلي قواه روح قواه جيرك قواه نرش قواه مامر قواه نرش النمات إنه الشفاء يهيبا إلهي المامية إيوه نحرس هذا واحد السعادة أصليا ولا بقيبوت ومن آخرة هي من الدنيا سعادة دنيوية هي سعادة أخروية لبضب عن طريق القرآن بالمقارنة سعادة الدنيوية وحيد هذا سيدو تلمام يا صاحب مفردات القرآن الأسفهاني الراغب الأسفهاني وحكو تلمام هنا ثلاثة أضرب صدح غيبوت سعادة نفسية وبدنية وخارجية وتلمامية والسعادة أما الليبان مرة يبين نفط بنادم كإدارته عواطفتي سيئة عقلية سايكولوجي كلين الدقو ننقفك نرشي سرالي كان مغضو مدنا وسعادة بدنية بين هذا هو شركة يعافنا طبكي سيوح إلا هالمالا منا وماتيريال كخارج كقفك كاه هذا بس سعادة وحي قرآن سطح ألوان الخير والراحة والرفاه والبركة وحلالي وحي أولي هي نوعية خيرك يا راحة يا بركة يا غيرينك الشقاوة روحي قرآن سطح بينها صنوف القلق والضيق والشدة نوعية يدنا والبهاكة عليلك والوركة يوحي لها المعنى إلى القرآن كوحكت الماما يا مكة إن لو سودتشي عدي قاعدة إناني كديت كي يردبت هي مشاكل كالله كما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلهي وكلا يهديك كيدا حنون دي كيما عدي حنون كاسر على مروا ميو وعقليا أما أركتدو نرش كتابو أما نرش السدو قيمينيا أما كون كوحو كالرميسية أما السدو وحو أرقو أما قاقو نورانيو مروا ميو إلهي سبحانه وتعالى من الكديد ميو أردي بك مسيو غاريس لكن عندي كوع عتبة إلهي لي ذكري كاسي أما القرآن كاسي وحشيالي عندي كوع عتبة وحيلا دايما إلهي نولل عريدية نولل عريدية با إلهي كنت المامية سبحانه وتعالى هذا با إساقو هدور ربو طرين كاما عاطفة داسي دقناشية حسلوني دا وضطا قال لي هاشية وضطا قناعة عليه ومكو الراعه طريق القرآن كشيبي ومركو القرآن أخريه وكتدبره كل نقمه وحو شيء يسيب نبور راعه أي دريمة هدي نفت بني آدم كي حسيل ويده وهو يتبينان كنفسي أما رضا نفسي أما سعادة نفسية هدوه مكونات خارجية محيابات نبتاهي وحبا مطرا حتى الدنيا دمان تهدي للصيو استويت النبي عليه الصلاة والسلام حديث كوضا حكوت المامية من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها النبي الشريع عليه الصلاة والسلام نكوابرسته في سربي أي في قومي أو في أهلي غير كيسي تركيسي تدكيسي سوى لجوغا نبض كوابرسته نبض تخارجك أو حكم مهم تداخلك
qofku naftiisu waxay ku sugantay inuu ku qanacsan yahay wuxuu aaminsan yahay inuu ku qanacsan yahay wuxuu yahay inuu ku qanacsan yahay qofka haystaa alamni nafsi walamni اlijtimaaci miduu doonaba ha noqdee mucaafan fii jasadi alamni اljasadi jir ahaanna caafimaad qaba maantaa wuxuu cunana haystaa kaas buu nabigu leeya calayh الsalaatu wasalaam dunidaa lagu soo ururiyey haddaba waxyaabaha qaarkood waa mukawanaad khaarijiya oo qofku sacaadaday dhammaystira laakiin asalka ma aha maxaa ka mida kuwa nabigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya arbacun min asacaada buu nabigu afar sacaadaday ka midtay waa maxay almar'a asaalixa والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن حبان لشغل الباني صحيح قلت المامري يقول الصالحة يقول واسعة شارك في عندك كولاكسن مركب كهنية وحنا فورو أوفيعا ومن السعادة بالي أفر نوع ليلوى من الشقاء كذلك كبدي وشارك حن هوين حن مركب حن هي مسكك حن أما مسكك الضيقة سيدة حديث قارة المامية ضيقة هذا حيوان عند المامية ومكونات خارج غير المامية سكوبا هذا موشد موح بغن baynu u baahanay inaynu ka warranno laakiin waktigu waa cidhiidhi waxaa isku dayaya inaan kor maro waxaan rabo waxaa jira bay culammadu yidhahdaan asacaada almawquuma waxyaaba bini aadamku ismoodsiiyo in la liibaano marka la helo laakiin aan ahayn xaqaa'ida dhabteed ugu liibaano haddii aynu nidhi sacaadadu waa riyada qof kastoo bini aadamka ku kor nool inuu gaadho rayrayntahayo barwaaqiya badhaadhay halkee laga helayaaba isweydiinta لكن وحنا نسأل شاسي حيرت الناس قديما وحديثا ينلقى الطور ماشي السعادة اللي هليها ومسائل ورسي إلى هذا الكوة هرية قوة طبعا أدي علماء الفلسفة طهي سنة الخير والشر أما أثكس أما أستيتكس ميلا سنة الجمال والقبح اسكو وضوء ومسائل قفك بني آدم كارني بدك وهي بينانا قار بغالي ميلا ميشي دي حيبك كبعض الدولة بين لين حين هذا وهذا لؤلؤ كبعض الدولة الصحارى لؤلؤ قد يبيها من الصوصار لكن هذا تران عليه الصحارى كبعض الدولة وهذا كل مدال يعني يتشب يفرع مرنان bini aadamkuna wuu tijaabiyey waxyaabo badan oo mutaca dunawiga ah uu moodayay in laga helayo sacaadada waxaa ka mid ah ragga badh ama haweenka badh waxay isku dayeen dad badan inay la kulmaan ninku dumar badan inuu la kulmo ama caruur badan inuu dhalo ama xoolo badan inuu helo ama raqdi lcaysh inuu gaadho ama naciim maadiya ama bay yidhaahdeen magac iyo maamuus tiro badan shuhra iyo muuqasho ama power sultaan iyo amarku taaglay dad badan baa sacaada ka raadiyey oo mooday inuu wax noqonayo ama inuu farxayo ama raynraynta iyo nabadda inuu gaadhayo hadduu madax noqdo ama hadduu magac iyo maamuus yeesho salib hadduu noqdo qof maaragtaye caan oo dadku wada garanaya amase hadduu maal badan helo in badanoo ka mida intan markay heleen bay iyada cadaab ku noqotay intan markay gaadheen iyada cadaab ku noqotay waa waxa bini aadamku jecelya waxana waa ka mido ilahay ba qur-aan ku tilmaamaya zuyina linnaasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال بني آدمك waxa loo qurxiyey jacaylka waxyaabaha shahwaatu nafsiga ah laakiin ma aha bay leeyihiin sacaadadii dhabta ahay sacaadada dhabta ahay
وحسن له كيف ولذلك بقى إلهي القرآن كوحكو لي سوقات كورمية فلا تعجبك أمواله ولا أولاده إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يكو عجب قرين يكو ياب قرين با إلهي ليه وقالت وحوره يعقور بحيستان إلهي وحدون يابا ليه إن لغو عذاب نرشاد حورها يعقور طريا وحنين النقضان وضدي لغو عذاب لها وينفتون كتكتو يهو قارانا يدنتان مكاس وحينادا هدي قيم كنورولات عقائد يديمو هدي الدمان وحكا هليتان كودوا الحياة البهيمية بها ونرش حيوانك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام قالوا بيلا يا رب كنت المام يا وإن راح يسنى يعني تالك أو حبايو حنيا سيدا حواره كله حياة حقيقة يقرأ الشيء يا مركز تنسي قوضانة المام والإيمان والعمل الصالح بني آدم marka uu degan yahay bay yiraahdaan waa markaanu laba shay uu ka nabad galo waa markaanu wixii tegay isku ciilkaabiye tiiraanya iyo dhibka hayay waa markaanu mustaqbalka bay yiraahdaan warwar iyo walbahaar iyo deganaansho ilaali ka hayay hadduu labada qofku waayo bay yiraahdaan waa markuu sacaadada ku noolyahay ilaahay wuxuu leeyahay alaa inna awliyaa allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بينهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كوا الله دورتي وكوا أن نرش فرق ينرش الدبابين نباور يبقى طارع تقابل علماء السايكولوجي كمركي كورميان وحيل هذا مدارس العلاج النفسي دمانكم مدارس تكرر نوع على الاسكوت إذا البناء السايكولوجيكال يدويه وهي الرميسية دمانكم مجمع واحد كوي القلق هو السبب الرئيسي بينها في نشوء أعراض الأمراض النفسية قلق تكناشيلات والوكية والبهاكة وهي هذا وعرض كم موضة حنونada nafsiga dhammaantood marka la isku daro laakiin madaaristu bay yidhaahdaan cawaamisha sababay way ku kala gedisan yihiin waxay kaloo madaaristu isku wada waafaqsan yihiin school of thoughts psychology dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin alcilaaji nafsi inuu ka bilaabo atakhallus min alqalq bay yidhahdaan in qofka warwarkiiyo walbahaarkiiyo sibxunu fakarkaasi laga saaro oo uu dareemo al-amn deganaanshiyo nabad uu dareemo laakiin asaalibta loo gaadhiyo waa isku khilaafsan idan warwarka nafeed madaaristaasoo dhan waxay leeyihiin waa xanuunka ugu dhibta ee bini aadamka ku dhaca sida loo daweeyo waa isku khilaafsan yihin laakiin waxay kaloo isku waafaqsan yihin haddana in laga takhaluso qalaqaasi inuu yahay guusha ugu weyne uu gaari karo waxyaabaha lagu daweeyo xanuunada nafsiga dhammaantood waxaa daba la rumaysiyo la leeyahay in lagu guulaysto qofku ilaahay rumaynta uu rumeeyo waa waxyaabaha keena shifaau nafs min amraadiha inay naftu xasisho oo xanuunadeeda ka bogsato waa waxyaabaha keena xasiloonida iyo deganaanshiyaha سأوجد بين القرآن وحكوت المام يكو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كو إيمان لها وأن إيمان كاسي كبيهم أما سيكون مريض وحيابا الشرك بقى أولئك لهم القواسان نبضي أسرنا طيبا إلى ألم لنفسي إنه نفعها حسن لون عظم kuwaasay u sugnaatay baa ilahay le iyagaana hanuunsan aladiina aamanuu watطmaئinu quluubuhum bidikri اllah alaa bidikri اllahi taطmaئinu اlquluub
آيات القرآن تربضا هذين آخرنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عدم الخوف وعدم الحزن القرآن حوالي أفريق والجنب صار لكن لما أنت تروحوا كحل إلى الإيمان والعمل الصالح هالضبط qofka mu'minka ah markuu ilaahay dhab u rumeeyo nolosha warwarkeeda ka haro sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahy iimaanka dhadhankiisa waxaa hela man radiya billaahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا cidda ilaahay rabbinimo u aaminta islaamnimadana diin ahaan u qaadata nebi maxamedna rasuul u yeela waxau nabigu ku tilmaamaya saddex qofka ku noolay iimaanka macaankiisu kii hore daaqa طacma aliimaan buu leeyahy طacmu liimaan waa maxay waa xalaawa wajada xalaawat liimaanna waxaa la yidhi qofka alle iyo rasuul ka jeclaada wixii ka soo hara qofka bini aadamka u jeclaada ilaahay dartii u naca gaalnimo inuu ku noqdo siduu u necab yahay naagta in lagu tuuro qofkaasaa helay iimaanku wuxuu keensadaa bay culammadu yidhaahdaan kow maalan qofka mu'minka wuxuu rumeeyaa arsaaqdu inay ilaahay gacantiisa ku jirto walidaalik faqri kama baqo qanuuc wuxuu ku noqdaa bilqaliil wixii uu helo ku qancaa إلهي سبحانه وتعالى مركز تبين نمعين بدنسيه والرميسين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والرميسين إذا نرش وروركم هيسو الرميسين قفك مؤمن كاي وهو بين إليك أنت سكتشلا وفي السماء رزقكم وما توعدون وحاول الرميسين هاي إلهي نجرد معموله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها qofka mu'minka wuxuu rumaysan yahay noloshiisu inay wakti leedahay geerida kama cabsado saasi daraaddeed baa kuwii iimaanku galay saxradii fircawn markii hore waxay lahayd ina lana la ajran in kunna naxnu lghaalibiin maxaanu dheef helaynaa bay lahayn haddaanu muuse diro kooxaw badin isna wuxuu lahaa muqarabiinta ku biiraysaa kuwa ii dhow xaashiyada wasiirada agtayda ayaa imanaysa laakiin markay iimaanka heleen ee ugu goodiyey waan idin laynayaa isku gacan bidix iyo gacan lug midig baan isu keen jarayaa saasi oo kale markuu ugu hanjabay waxay ugu jawaabeen laa dayra inna ilaa rabbina munqalibuun dhibiba ma jirto bay idhaahdeen dhibi ma jirto waayo waxay rumaysayeen marka ka in ilaahay gacantiisa wax waliba ku jiraan kullu nafsin daa'iqatu lmowt qofku hadduu iimaanka uu qur-aanku ugu yeedhayo qalbigiisa dego waxa alle uu ku tilmaamaya alqadaa walqadar markuu rumeeyo waxa uu rumaysanayaa maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an naqra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw cala maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum والله لا يحب كل مختال فخور wax kasta oo dhibo ku halashaba ilaahay leeyahay naftaada iyo dhulka iyo wax kasta oo balaayo kasta oo dhacda ilaahay kitaabkiisa hore u qoray waxaa sidaa loo yeelay baa layidhi inaydan ka warwarin wixii idinka tegay ku farxin wixii aa heshaan macnaheedu waxaa maxay inaad maamulka ilaahay raalli ka ahaataan maa asaaba min musiiba إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه نصوص آخرنا يوردن ينبغي الكتريبة وحي شيء قفكو هذو قرآنكو إيمانكو شيء يلا يماده إيمان دبا نرشو إنا لورور كبير لأن السعادة نفسية ينويرا هدي إيمان كاسبو مرادة عمل صالح يشاء إلهي يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عمل صوبان عدي سما يسلم يد الدباء يسوى مؤمنة كوحا نورين نبيل إليه حياة طيبة هي حياة سعيدة نرى قروح له نرى في عن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آيات بدن القرآن وحي شيء إيمانية عمل صالح عندي لقيها إن يجلسوا نرشتي وقروح بطنين سويت النبي حلي عليه الصلاة والسلام وحياه له أردت قفك مؤمنك ويارك سوء وخير والوركم يجروا قفا مؤمنة هينا أركاس المصر نبي هذي نعمة وهرو إلهي بو مهدنقا دبلتنا وخير هذي بحال الشنع والصبر إينا وخير إيمان كاس وحكا صداقف الشعور دقناشيان بهرو عبادات سيد الصلاة زكاة صومك حج ذكرك عبادات كاسي دينتو إلى فرطينا waxay keensadaan suluuk ama dhaqan qofku uu sii xasilo sii dego. nabiga calayhi salaatu wasalaam markay nolosha ku adkaatee cahdigii maka la joogay ilaahay baa qiraya inuu cidhiidhi dareemay dhibaatada haysata daraaddeed walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyo mise waxay ku hadlayaan ama istinsaal bay nabigu samaynaya ama ilaahay subxaana wa tacaala waxay ka sheegayaan. إلهي وحكول فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ترياقة ما الدولة المشيرية وحن ترتركها وسبحان الله وبحمده قد صلي سجودنا أنت سجودك منه عبادتنا لازم أنت نفتك بحيثه يعني وحلوات المام يا ضيقة سوريوشك سواكا هذا تصير تقول نقمته وهنكبت بادي سبال لي عليناس إلهي قرآن بلا فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى. رضا النفس وحد قال سبال لي المكة الله معه تصبيح ذا ترضى فظل قال الهرية قال الدمية هبين بقى عبادات بين وحيابها سعادة القدر يا ابو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قد المام وجعلت قرة عيني في صلاة وحين نهي بكدك سداد وحرري يقول نبي بصلاة أرحنا بها يا بلال نبي المام بلال ونور راحين هدي كان إذا حزبها أمر صلى هديت بها ليشم وتكجري سداوي علماء إلى هذا قوس هذه السعادة دي عكس كذا نقرأ وحكوت المامين وكذلك كذي إلهي وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إنه إلهي دوران هنونيه laabtiisa waxaa loo waasiciya islaamnimada inuu qaato qofka rabbi rabo inuu lumiyana kadeedka qofkii lala rabana laabtiisa waxay cidhiidhi ka dareentaa islaamnimada qaadashadeeda dabeetana cidhiidhigaasaa mihaal laga bixiyey wuxuu la mid yahay baa la yidhi sidii mid samada koraya samada haddaad kor u korto maxaa dhacaya kullamaa tartafic markastoo aad kor sii qabataba oksijiinkaa sii yaraada تدبير نفسك عديد كلية إلى حد أتقارده أدنف قبطوده وأنا سورة قالها هنا نفسك إذا محلوك الماضي إسلام لماذا سعة الصدر هنا كيسة الله قادر يبالله بالصلاة نسو معنى وحويان إن السعادة دريم نسو كفر إذا محلوك الماضي إن الله قادر عينة إنه نسو سيدا كاس ملك قريب بل آيات كلا إلهي وحوة الماضي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء نك إلهي وشرك يا لوح النبي من عقل صوت طريبة إلهي فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح وشبره بابا ينام ضبيره كتوريا من درسا وحلقة الماء يدكنا شيء لأنتم سيدا هو كانسو ضبيره الستان وشبره بابا يسيدا وحصل لورين أما سيود الدنين
أي أهل الكفر بقى محصلون حبقي أبنى تموده فيسبوك يدا صورة بدل مصوصة ولي تذكر فرح سيئ يعني رواية نريد ما تيسور بكتور ولذلك واحد السوشيال ميديا يبوها وراي وحكم إذا بينها بني آدم كو هنشري بينها أفضل يبوه هنشري صورة تسميه أيوه قفة كلا يسورانيا والله هذا بعد لدي كان يدخل مشو مال في عمي وضع مريت أما حكا مرضو شيريسو أما مدح على صورة أيوه أما أفلام ترجل على صورة يا ما على صورة وحرر دلوقتي والروايات أو حلا سوري ليه أو خبر أنت يسوق تكتيبا جرام تسيدنا وكيسي أبو إسماعيل جرام مريم حدا وحكا لكن في قرار نفسي markay ka baxaan meesha istilaah dadka ugu badan istilaah bay yiraahdaan waa middle class iyo upper class foqoradu inta badan isbedel shabeeya dadka ugu badan ee dil sameeya waa middle class iyo upper class bay yiraahdaan waa tabaqada mujtamaca sare iyo tabaqada dhexe ayaa iswaaday saciidiin maxay isu dilayaan kuwa Ferrari wata iyo Porsche ka haysta skyscraper ku nool diyaaradaha kaligood qaata ayaa ugu badan عدة استشهاد وما هي سببت سعادة نفسية ما شفته ولذلك ما إلهي قلت المامية قفوا هديبوا آيات القرآن وحين وشير يعني رموانتا قفوا هديب وقروا يوحوا إنه ليجا حدوا يدو شوكتا وقروا يمشوا الصعدة وهذا دي مقدمة دي يباركوا بس كمت ما نغنسا عيدة قيمها وما كان حوي markuu garan waayo qofku meeshu ka yimi aad rumaysato inaad xayawaanka ka timi inaad la qiimo tahay genetical bad modification kugu dhacee amiibadaad la nooc tahay haddaad noloshu sidaa ka rumaysan tahay saciid marnaba noqon mayso xataa maanta fiisirku waxay idhaahdaan waxyaabaha ugu badan ee dhibta haysata waxaa ka mid a أثيكس وأكتود مجرو حيابان فضايشة ما أخلاقيات كما وحكا الله يلعب سيداو بيض قفك بني آدم كاين مركا وقرطه كو قانعوه حقو كيمية حقو كو سعودية وحوية يقيمها وليه كو قانعوه إنه مكرم بيها ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مركا وكو قانعوه إن إلهي كرامي ولقد كرمنا بني آدم markuu ku qanco dunida tan oo dhan isaga loo abuuray taas waxay dareensiinaysaa inuu maqaamkiisa garto waxay dhahdaan nicamka ka warrankooda laba shay bay faa'iideeyaan altakriim waltacriif bay dhahdaan dhan waa mukaram baatay oo waxaad dareemaysaa makhluuqaadkan oo dhan in adiga lagu abuuray saa daraaddeed baad qur-aanka waxaad asraysaa وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس وسخر القرآن الكون كله مسخر لك هذا الوجود تسخيري وهذا إنه كون theoretical physics كون ربع وحي هذا blue planet إنك اللي ينو بلا قريبي لي سدرجة وحي هذا كان الكون يعلم وحد دين يريد وجدين الرصاص عنه وحي هذا يريد الثاني وتايلر ميد فور من بينها إنك اللي نو تشانجوي ولا نو قياسا إذن مركا التصغير كقرأته وحد قرأنا سيناد مكرم طيب مرة بعدنا والتعريف ووامحي المنعم بين هذا الله وحن كود دياريين الاعترافه وهذا هو عبادته إذن إيمانك وحكينا سعادة أعماش صالح وحي كينا سعادة أعماش حن سيدا حاسد نبدا حق دي الضيقة وحيوانا وشعرية سدرات بين يحلي أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل كو إلهي أمان يحلي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أهل الجنة إلهي مركو سفينه سيدي دبا الجنة حتى وصف أركتو الجنة يا لا معناه ذو حوية ومن أوصاف السعادة سدرات إلهي وقوت المامية ونزعنا ما في صدورهم من غل وهنكسي نوحي
dunidu haddaad aragta bini aadamka xaasidnimo iyo xiqdi iyo qeyl iyo wax la mida uur xumo dhammaanteed waa cagsi sacaada qofka saciidka ay waxaas kuma dhacaan si awgeed bay culimmadu waxay idhahdaan caqiidadu oo ah inuu qofku bedelmo aragtidu iska rumaysan yihi waxa uu nolosha ka rumaysan yihi kownka sida uu arkaa waxay keensataa bay dhahdaan suluugiisuna inuu isbedelo oo culamada nafsi waxay dhahaan qof haddaad rabto suluugiisa inaad bedesho waa inaad muctaqadkiisa bedeshaa bay dhahdaan oo dhaqanka afkaartu ku xidhanaya bay dhahaan wuxuu qofku rumaysan yahay ayuubaa ka soo fula cibaadadu markaas waa dhaqanka qofka muslimka ah ilaah qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ina alinsaana khuliqa haluuca ida masahu sharu jazuuca waida masahu lkhayru manuuca yaa laga soo reebay ila almusaliina aladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna waladiina fi amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون إلهي وحد المامي لبس فوق الدليمة حلم وبناء الكليل خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا بناء الكبال ومنها الدين نفتو مركة انتمادا أرقاحا نعمة ماكو هلنا يسمى سخوة سعيد ما هكاس لكن قرما بقى كاحمي كبحا صفات الصوص عطايدا إلا المصلين لبتنا إلهي وصوت تبيه والذين هم على صلاتهم يحافظون بلغوا قبقبيه أبدا نقع الصلاة الله قال لبتنا وحل أولئك في جنات المكرمون ذلك الصعيد كان هو ذلك الصفات كان لبركة أما هذه الصفات كان إيماني قال معملي قال لوايو وهتكون بيرسا قوة جسوعية منوعة هلوعة لا يوسف فيه أحيانا بين هذا كان صدقه يحصله الدهو السعيد في الموضوع قرآن وحكوت المامين كم ينتهي بريض سيدة واحد هذا ولماذا نفسي كما رمي إنسان وحيابا وكنا في سوحة كم يدا بين هذا إنه ببتي ساعد كلو الشاوة ببتي ساعد كلو الشاوة مركا مثلا علماء السيكولوجي واحد هذا نصيحات dadka ku jooga inta la isugu yeeraaba la yiraahdaa dhigtiina isu sheega mid baka kale mid waxa laga yaabaa inuu dawakhay inta xoolihii marka kala dilay mid waxa laga yaabaa inuu xanuunsan inuu daw mid baka kale dhigtaada u sheeg bal isaga wararkan wuxuu keensanayaa bay yiraahdaan qofku inuu mushkiladiisa sheegaa waxay ka mid tahay bay yiraahdaan cilaajkiisa qayb ka mid ah ولذلك bay yiraahdaan ducada inaad ilaahay u sheegato قال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي واحد هذا هو قفك او شيغانيا دكتيسيو ايو شيغانيا من بيده الملك متكرر dhibaataysan u sheegan maysid oo isbakada kale ku jira laakiin waxa uu sheeganaysaa maxay man biyadihi malakutu samawati wal ard بمجرد انه الهي بريه بيلينو وكبر يقل بسوجه ويو ايام وفل بيليني كدكتو مشاكل قفك هستيدا مالتين ايمانك يعمل بصالح وحي كان بيننا الامن النفسي وحي كان بيننا امل والهي الرجيني وحي كان بيننا عدم الخوف والحزن وحاصر دمنا وراكم مركبوا بالدواء كيه وراك تردد يا ريب يا ارتياب يا شكل قرآنك وحو قفك بناء كأبرا حسيلونية سوى قال قرآنك أخرس كيس مركة وروا الوحسلة وعلماء ما أنت وحقيقي يا صار الدكتور أحمد القاضي ميال ورجلي اختار كي مسلم كهاي مصري كها وأنا اختار qoladan wadnaha iyo sababada bedela buu ahaa khatiifka waaweyn Mareykan laga dambeeyo markuu beeshariiska noqday ayuu ciyaadadkii waaweynaa dhinacooda wuxuu ka furay ciyaado dadka quusta dhakhtar ku dhigaysa dhakhtar yar ka furay
dhakhtarkan wuxuu u furan yahay markay dhakhaatiirtu yidhahdaan qofka waa lagaa quustay dawada makuuma hadhinee within 3 months you will die markay ku yidhahdaan ama within a month ayaad dhimanaysaa kansar baa ku haya stage u dambeeyuu maraya bil baad noolaanaysaa waxan baa kugu dhacay bil baad kuwa bishiiyo labada loo qabta uu yidhaahda xaggan haddaba iska keena ilaan dhakhtarka farsamadiisii dhammaantay axmed adaadii dhankiisaa la geeyaa dabeetana wuxuu bilaabay qur'aan inuu akhriyo dabeetana waa dad qaarkood gaalo u badan yihin taxasunaad badan baa muuqday way yidhahdeen bil baa ku dhimanaysaa 5 sane gaadhay way yidhahdeen caynkanoo caafimaaday dad badan buu tijaabiyey waxay tijaabiyeen in la qiyaaso qofka marka qur-aanka lagu akhriyo ta'hiirka uu ku samaynayo raadka uu samaynayo qur-aan mujawada bay ku akhriyeen markaasuu raad badan sameeyey markaasay qur-aan bilaa tajwiida ku akhriyeen markaasuu raadkii ragkas ka dhiman sameeyey markaasay yidhahen war male waa gunnada tan iyo qaabka mooge af carabi lagu gunnaynayo lagu heesayaha lagu akhriyo markaasay waxba samayn weyde markaasay yidhahdeen wax kastoo tijaabo oo la sameeyey sameeyeen dabeetana waxa u caddaatay from 70 to 90% qur-aankii tajwiidka lahaa iyo qur-aankii bijuubi tajwiidka ahaa inuu raad ku samaynayo qofka raaxatulbaal u gaarsiinayo idan waxay leenahay akhriskiisa adigu aad akhridaabaa itminaan laga helaa ka lagu akhriyo ayaa lagu bogsada soomaalidu si qaldan bay u fahamtay qur-aanka laisku akhriyo waxay jinku inuu saaraabay u haystaan war bukaanka kale lagaga bogsadaa qur-aanku sidiisu shifaawiye ma ahan qofka marka jin ku dhaco lagu akhrinayo ama uu akhrisanayo ee mar kastoo aad warwarto waala bidikri illaahi tatmainu lquluub adkaarta la akhriyo oo dhana qur-aanku tilmaamayo ayaa laga helaa maxay xasiloon marka waxaan leenahay qur-aanka rumaynta la rumeeya isbeddel bay nolosha ku leedahay sacaada lagu helaa akhrinta la akhriya isbeddel bay ku leedahay akhriska lagugu akhriya isbeddel buu ku leeyahay si kastoo qur-aanka aad u isticmaasho marka si kastoo aad uga mashquushaana ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سيدا أوجد قرآن حين بريا عمل قلوب الله الصبر على البلاء حين بريا القناعة بالقليل قف وحير انه كافتوك ادوك بينا قف اكتي سوى حوي كان قولي الرضا بالقضاء والقدر وحيال الحكومين وقف الرالك ونغضه سأوجد من أنجع الوسائل وأقربها وصولا للسعادة بها وضرك وجوده يقفك بني آدم كو غاري كرو إنه هليرو سعادة لو إحنا لنا القرآن إما إنك كنت تدبريسه وفهميسه معنيسه وصيده وفي عنه والعقيديسه يسوي التلمامي وكنا نسوي حول شيريه ووحي صحابة النبي محمد النبي عليه الصلاة والسلام بسعادة وكهله ووحي الدنيا هو كان وحنا قيمة بدن هين الإثبات أخرس كيس يذكر كيس يورد كيس ووحنا نفتح وحسشوا اسكو دوينتي سو وحنا نفتح الودوية ولذلك أي جانب لقى سعادة روحية يمد نفسية يمد عقلية يمد جسدية يمد مادية ولا لها القرآن haddaba waktigay wadaadadu u qabteen inaan deriska ku akriyo waa 40 daqiiqo 40 daqiiqana waxaan ku talagalay inaan idin dul mariyo si ay idinku abaadi doontaan